Rayaan oo dilay hooyadiis iyo walaalihiis waxaan ku dhahay intaba ka taqalusay oo arbay asagana inuu isdilo laakiin ilaahay maqaadirtiisa asaga dhiman waaye. Qisadan xanuunka badan waxay ka dhacday wadanka Masar. Soo 27 Ramadaan ayay dhacday qisadan. Hooyadan oo u dhalatay wadanka Masar ayaa waxay guursatay nin ka soo jeeda wadanka Sacuudi Carabiya. Kadib markay guursatay Sacuudigii aaday xaggay u guurtay ilmaha xaggay ku dhashay. Waxaa dhacday in ay reerkeedii maxaa la dhahay ay gooyeen walaalaheed, waalidkeed, ehelkeeda oo dhan. Kadib ninkiina uu ku xumaaday uu noqday nin xun ee kula noolad intaasoo sana yacni halahaano ilmo ee markay dhalaysay yacni maxaa lahayn nolol adag ee kula noolad ninkaas iyo cuqdad nafsi iyo waxaan ku dhahay nolol yacni mustakafi ahayn. Haddii uu ninkii ku xumaaday noloshiina ay ku adkaatay dhan kasto. Kadib waxaa ku dhacday maxaa lahayn waxaa ku dhacay cudurka maxaa lahayn kansarka ayaa ugu dhacay baga maxaa lahayn maamada. Markuu cudurka ku dhacay ninkeedii wuxuu dhahay maxaa lahayn waxaan rabaa inaan kuu sheego in wadankaada aadid aad isku soo daaweysid maadaama Masar ee nolosheeda maxaa lahayn ay jaban tahay daawadeedana maxaa lahayn Sacuudiga yacni ay ka raqiisan tahay daawo iyo wax kasta hadii la dhaho ee Sacuudiga nolosheeda iyo daawadeedaba ay ka raqiisan tahay. Adii ilmaha israaca xagga isku soo daaway marka isa soo daawaysid kadib haddana dib u soo laabo. Soo maxaa lahayn ayadana waxay is dhahday macquul waa is dhahday way soo baxday Masar ay imaatay. Masar markay imaatay ehelkeedii horta mar hore ayadoo Sacuudiga jirtayba gooyeen markay imaatayna waxay dhaheen maxaa lahayn anaga hanoo soo dhawaanin magaaladaada geeska gal yacni maxaa lahayn inay la noolaato intay magaalada ka fahmaysa ama intay xaaladdeed si ka noqonaysa ay rabtay laakiin ehelkii way soo buriyeen wayna diideen in ay caawiyaan yacni waalidkeed iyo walaalaheed tabcan. Kadib ma aqaan waalidkeed inay nool yihiin Allahu aclam laakiin qisada sida aan ku maqlay guriga iska ijaarteen ayadii ilmaheed guriga iska dageen ayagii noloshooda maxaa lahayn sidii ay tahay shaqana aysan haynin wiilkii isku dayay inuu shaqo raadiyo asagana maxaa lahayn shaqo fiican way u suurtagali weysay ama shaqo isku toosan qofkana markuu wadanka maxaa lahayn wadanka uu ku cusub yahay ama muddo oo mooganay wuxuu u baahan yahay waqti uu la qabsado oo yacni uu shaqan ku raadsado. Ayagii noloshooda sidii ay tahay baa aabihii maalmaha ka mid ah soo wacay hooyadii aabaha ilmahan dhalay 6 caruurta ah wiilkaas u weyn oo 20 jir waaye ee dadka leeyihiin. Kadib wuxuu dhahay waa iga furan tahay maanta laga bilaabo dibna iguma soo laaban kartid wadankaada joogta hortaada hor Allah. Wuxuu dhahay naag cusub aan aroosaya noo kala wad yacni xaaladii haysatay xaalad ka si adaga ugu sii darsantaybo ninkii oo soo furay awalba yacni nolol fiican kuma haysanin laakiin waxay isdheeysay haddii aad roonaatid ilmahaada dib u cesho maxaa lahayn yacni si ay wadan ilmaha xitaa sharci oo rasmi ah xitaa ma lahan. Almuhim waxaa dhacday markii ninkii uu saas dhahay way isla hadashay dhan kastee noloshii ay ka fiirisay waxay ku fikirtay in ay nolosha isdhaafiso ayada iyo ciyaalkeeda 6 ahba ay adduunka ka wada tagaan. Waxay dhahday waxaan isku aadinayaa yacni laylatul qadarka 27 Ramadaan ayay isdileen ayada ciyaalkeeda wiilka bisa ka badbaaday oo asaga dhiman waaye. 27 waxay soo gadatay maxaa lahayn darsin oo sakiin ah sakiinta yariista Soomaali madaxa lagu xirto. Sakiintii soo gadatay wiilkeeda weyn u wacday hooyo waxay dhahday noloshan maxaa lahayn way ugu adkaatay waligii dhib leh ku soo jiray haddana dhib ay ugu sii darsamay aabaha maxaa lahayn khalaas waaye meel u laaban ma lahan meeshaan yacni ehel iyo walaal oo igarab taaganna ma lahan oo maxaa lahayn maanta nolosha adag yacni maxaa lahayn dad igarab taaganna ma haysto intana dad kuma haysto xaggana aabaha wuuna deeriyay. Soo waxay dhahday waxaa go'aansaday inaan nolosha isdhaafiyo adinkana idinkama tagi kari waxaa rabaa inaan maxaa lahayn ay caawisid oo kulligeenaba aan taa isdilno sidaas laylatul qadarka aan habeenka annagana jannada aan ku galno. Subxaanallah jannada waxaa waaye xisaab waaye laakiin kulli ayadii saasay u fikirtay. Almuhim ayadii iyo canugeedii wiilkeedii weynaa ilmihii isla qabteen gacnaha laga jarjaray Allah xanuun badanaa inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un gacnaha laga jarjaray ciyaalkii
gacnaha marka laga jarjaray oo nafta ilmihii maxaa lahay shantii canug laga taqalusay waxay dhahday haye anigaa dhiman markaan ayadii dhahday hooy iga jar marka aniga maxaa lahay aad xididada yacni qofka xididada haddii laga gogooyo meel kasta oo xididada ama qoorta ha noqoto ama gacnaha yacni naftu way ka baxaysaa sow ayadii markuu ka jaray ee nafta ka baxday asagaa soo hara asagaa dilaayo waay subxaanaka yaa cadiim asagii waxay dhahday isdil marka anaga dhamaatid adiga isdil khalaas sheekada maxaa lahay kadibna sidaasaaba jannada ku wada galaynaaba waxaa dhacday asagii wuu isku dayay gacnihii iska jaray meel kasta iska jar naftan hadduu ilaahay qaadayo unbay baxaysaa asagii wuu dhiman waaye markii dambe wuxuu sameeyey maxaa lahay muddo 2 maalin iyo 3 maalin markii la joogo oo wuxuu damcay inuu iska soo tuuro guri dabaqay degnaayeen dabaquu rabay inuu iska soo tuuro dabaqii dadkii arkeen waa la qabtay haddii la qabtay oo gurigii la galayna waxaa loo wada tegay reerkii dhan oo saalada daadsan oo meyd ah yacni maxaa lahay waa la yaabay waxaa la dhahay qisadii uu ka sheekeeyey almuhiim wuxuu dhahay saan isaanay wax u dhaceen anigii hooyadeena waxaa go-aansan inaan isdilno noloshaan aan ka tagno soo marka hadda maxaa la dhahay dadkii waxay leeyihiin dembigaaya iskale ma hooyadii iskale ma aabihiya iskale ma wiilkiya iskale yacni inta 5 canug la dilo hooyadii naftirkeeda waxaan ku dhahay isdisho walaa qiso xanuun badan waaye marba intaa haddaa soo gaarteen videogana sheer gareeya meel dheer gaarsiiya